kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena qubanaha VOA toddobaadkan barnaamijka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo jooga London iyo Falastiin Imaan oo Washington joogta. qodobada aan idin haynana waxaa kamid ah booliiska Soomaaliyeed oo u dabaaldegay 74 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay. bandhig soconayay muddo toddobaad ah oo loogu magac daray awoodeynta warshadaha Afrika iyo China oo lagu soo gabagabeeyay Nairobi. dilalka dhalinyarada Soomaalida ee ka dhaca gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus oo ay Soomaali badan degan yihiin warbixin ayaan idinkaga haynaa. kaniisad jirtay in ka badan hal qarni oo ku taala dalka Mareykanka oo loo bedelay masjid. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan. munaasabad lagu maamuusay sanad guuradii 74aad ee ka soo wareegatay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. ciidamada booliska Soomaaliya waxaa la aasaasay 20 December sanadkii 1943. Xasan Kaafi Qoyste oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa warbixinta nooga soo diray. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan madaxda sare ee dawladda, golayaasha kala duwan ee dawladda iyo saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa salaan ka qaatay qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo gaadda kacayaar ku sameynayay barxadda dugsiga sare ee booliska, waxaana gaadda kacayaarka kadib Ra'iisul Wasaaruhu uu ubax dhigay taalo ku dhex taala bartamaha xarunta dugsiga sare ee booliska kaasoo lagu xasuusanayay 17 askari oo dhawaan ku geeriyootay qarax ismiidaamina oo ka dhacay afaafka hore dugsiga sare ee booliska xilli ciidamadu ay diyaar garow ugu jireen munaasabada maanta la xusayo. maantay waa maalin weyn, waa maalin muhiim ah, waa maalintii laga soo bilaabo 1943 oo wada garanaysaan in ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu mataaneeyay leegada laga soo bilaabo maanta maalintaas ilaa hadda ay ka shaqeynayeen inay naftooda u huraan qarannimada Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa dhanka kala sheegay in goobta maanta dabaaldega lagu qabanayay 14 bishan ay ku geeriyoodeen 17 askari oo qarax lala beegsaday, kuwaasoo uu tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed ay magac uga tageen sidoo kalena ay dhiigooda u qubeen ilaalinta sharafta ciidanka iyo astaanta qarannimada Soomaaliyeed. ma ilaawi karno 17 halkan ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay, waa inaan iyaga iyo qoysaskoodaba mar walba garab taagnaana. kusimaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa ka hadlay qiimaha 20 December u leedahay booliska Soomaaliyeed. guul iyo horumar iyo nabad maanta mid aan joogno ka wanaagsan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed guud ahaantiisa aan rajaynayaa hambalyaan leeyahay mar kale. sanad waliba maanta oo kale ayaa xuska munaasabada maalinta ciidanka booliska ee 20 December lagu qabtaa fagaaraha dugsiga sare ee booliska, iyadoo sidoo kalena munaasabada noocan oo kale ah ay iskood u sameystaan ciidamada booliska ee dawlad goboleedyada dalka ka jira. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus ka dhacay dilal loo geysanaya dhalinyaro Soomaaliyeed. Ohio waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Mareykanka marka laga yimaado Minnesota. warbixin ku saabsan ammaanka iyo dilalka Soomaalida ee Columbus waxay noo haysa Falastiin Axmed Imaan oo dhawaan halkaas soo booqatay. in ka badan 40,000 oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay degan yihiin gobolka Ohio kuwaasoo ganacsiga howlo dawladeed iyo adeegyo bulshada qabta. Ohio Soomaalidu waa groupkii ugu horeeyay ama dadkii ugu horeeyay oo tiro badan leh oo yimaada 50,000 oo qof oo kale dad la eg oo saas oo kale qoyti u ah ma imanin hadda ka hor Ohio. gobol waxa weeye waxa la yiraahdo conservative ah ama dhaqanka ku dhagan oo aan aysan sahlanayn in laga mid noqdo nidaamkiisa. dadka Soomaalida markii loo eego ummadaha ka yimid adduunka kale oo dhan Soomaalida ugu tiro badan gobolkan haddana wanaag badan way ku soo kordhiyeen, walina waxyaabo badan way ka dhiman yihiin. gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus oo ay degan yihiin Soomaalida intaasi la eg ayaa waayadan waxaa ka jira dilal kala duwan oo dhalinyaro loo geysanayay.
iskoolku ka soo rawaxay waxay ahayd baan u malaynayaa saacaddu 4 meelaha wuxuu soo wacay 3:55 daqiiqo wuxuu yidhi aabba librarigan u baanahay ii imo isla markiiba waan imid markiina isagoo moogtay boliis iyo ambulance joogaan baan imid maanan ogeyn marka kadib wiil yaroon dhalay baa yidhi aabbo maxamed garoonku jiifaa dhulku jiifaa marka isla markiiba waxbaa igu dhacay waa orday wiilkii oo kubaddii ay ku ciyaarayeen guriga hortiisa ay ag taallo isagiina uu jiifo yaan tagna meesha boliiskuna meesha ay xidheen dilalka dhallinyaradan ayaase ah mid walaacinaysa waalidiin badan qaar badan oo ka mida waalidiinta aanu la kulannay ayaa ka gaabsaday in ay si toosa uga hadlaan dilalka dhacay qaarkood waxaa jira in waalidiintu ay dilalka wiilashoodii ku tuhmayaan dhallinyaro kale oo Soomaali ah oo xaafadda ama magaalada kula nool intaasi waxaa sii dheer qaar badan oo ka mida eedaha dilalkaasi in aanan weli xal loo helin maxamuud waxa uu ka warramayaa gaar ahaan sida dilka wiilkiisa uu u taabtay qoyskiisa iyo saaxiibadii noloshaydii sidii aan ahaan jiray may nin aad u farxad badan baan ahaa nin aad social u amaan ahaa waxaygoo dhan hadda waxay isku soo urureen aanan xitaa qoslin oo wax kastoon samaynaya uu yahay wax uun runtii aanan habi ahayn markaan kuu sheego xaliima mudday sheekh aweys waa hooyo iyana wiilkeeda lagu dilay magaalada Columbus waxaa la dilay wiilkeeda oo lagu magacaabayay Muhammad oo 22 jir ahaa xaliimo waa hooyo 6 caruur oo yaryar oo agoona la timid dalkan Mareykanka oo ay kala soo carartay dagaaladii Soomaaliya si ay ugu koriso halkan xaliimo waxay ka waramaysaa qaabka wiilkeeda loo dilay ani waxaan ogahay inuu isoo wacay oo ay dhahay right isii hooy hadda ku imaana markaan dhaasoo ilig laga soo bixiyay dhiigiisa da'ayo anaa ku imaana markaasuu yiri hooy adiga ii imaanin hadda shaqka imaaday walaashay isoo aaday horteen gabdhahana aadeen ayaga soo kaxeen ma hubo inuu asi wacay weydiiyay uu dhahay ikhada inay ayaga u yimaadeen oo qaadeen laakiin dadkii markaas la joogay waxay sheegeen inay farmashiyaha ka wada imaadeen daawo u soo gatay xanuun haayay asoo jaranjarta sii koraa in gaarigan dhexdiisa loogu wacay xaliimo waxa ay sheegtay in iyadoo hooyo qura ah ay caruurteeda korintooda culays badan ka soo martay iyadoo weli dareemaysa xanuunka dilka wiilkeeda waxaa kaloo ay walwal ka qabtaa in aan wiilkeeda cadaalad loo sameyn waxay sheegtay in kuwii ogaa ee joogay dilka wiilkeeda iyo qofkii lagu tuhmayaba ay weli banaanka joogaan qofna uusan runta ka hadlin weli waa dhuntay rajada waxaa la soo daristay cabsi khalkhal dhibaato badan laana markii hore hooyo kaligeed lax caruur korinayso aabba la soconin inta ciyaalka korisa rabtay intay korneebsato ku nasato yani oo haddana inta loo yimaad laga dilo maxaa lagu tilmaami karaa dilalkan ayaa marka ay dhacaan caqabada ugu weyn ee hor istaagta in la baaro waxa ay tahay marqaati la'aanta waxaana ugu sii daran marka ay yihiin kuwa ka dhex dhaca Soomaalida waxa ayna taa la wadaagaan sidii aanu ku soo aragnay magaalada Toronto oo dilalka dhalinyarada ay yihiin badankooda kuwa aan xal laga gaarin qayb kale oo kamid ah warbixinadan aanu ku eegayna Soomaalida gobolka Ohio waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda bandhig soconaya muddo 7 oo loogu magac daray awoodeynta warshadaha Afrika iyo Shiinaha ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya carwadan oo lagu soo bandhigay wax soo saarka kala gedisan ee Shiinaha ayaa waxa ka qayb galay oo warbixintana nooga soo diray waryaheena Yaasiin Ciise Wardheere waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha fiber optica iyo isgaarsiinta qaybaheeda kala duwan gaadiidka warshadaha yaryar iyo kuwa waaweyn oo China markii ugu horeysay ay Kenya ku qabatay taasi oo dad fara badan ay ka faa'iideysanayaan mashruucan oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee China iyo Afrika ayaa dadka ka soo qayb galay ay si weyn u soo dhaweeyeen iyadoo uu ka mid yahay Mr Frank oo maamulayaasha waaweyn ee shirkadda ka mid ah waxaana weydiiyay bal siyaabaha faa'iidada gaarka ay carwadani ugu leedahay China iyo Afrika iyo waxyaabaha markaasi mustaqbalka la higsanayo. It is very important for our Chinese enterprises to enter into the China
the African market because aad ayay muhiim noogu tahay in ganacsatada Jayneysku ay soo galaan suuqa Afrika. Nairobi waxay ku taallaa bartamaha Afrikada bari qaaraddana way u dhaxaysaa. Taasina waxayna siinaysaa fursado fara badan oo keenaya inaannu horumarino wax soo saarkeena, gaar ahaan xakaha fiberka loo yaqaano gaarsiinana Afrika iyo dalalka ku xiran Kenya. And the countries surrounding the Kenya. carwadu intii ay socotay China iyo Afrika dadka Soomaalidu si joogta ayay uga qayb galayaan daawashada iyadoo qaybiba ay wax danaynayso nin ka mid ah dhalinyarada aan kula kulannay carwadaasi walaal magacaaga iyo waxyaabaha ku soo jiitay Soomaali ahaan bismillaah yaa soo maasantahay waxa la yiraahdaa Siciid Khaliif carwada aniga waa maanta maalin saddexaad oo imaanayo gaar ahaan waxa anaga Soomaali ahaan aad noo quseeya haday tahay warshadihii yaryara beerihii waxa ka kaalmeenayo oo kaleeto fertilizerki iyo wixii beeruhu inay si fiican u baxaan bacrimintii oo kaleeto marka ganacsiyaashii oo kaleeto oo cargo company waaweyn oo cargo qofku meesha warba wax looga soo qaadi karo u sahlaya baa meesha ku aragnay wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee waddanka Kenya Aadan Maxamed ayaa dayaafadaasi furay isagoo ku dhiirigeliyay Kenya gaar ahaan Afrika oo dhan inay fursad u tahay xiriirka China iyo dalka Kenya waxaana China ay ka hirgelisay railway-ga iyo waliba silka xadiidyo fara badan iyo wadooyinka haroosiga highway-ga ee ka jira Thika Road iyo meelo kale iyagoo markaasi doonayay la sii ballaariyo mashaariicda dhinaca isgaarsiinta silka xadiidka dadka Soomaalida ahi waxay aad u danaynayaan ganacsiga oo ay aad ugu firfircoon yihiin waxaanad moodaa in mashruucyadan ku saabsan carwooyinka wadamada kala duwan gaar ahaan China iyo Kenya iyo waliba Afrika qaybaheeda kale uu soo kordhin doono horumar weyn oo qaaraddu ay ku tallaabsato Yaasiin Ciise Wardheere barnaamijka muuqaalka toddobaadka Voice of America Nairobi kaniisad jirtay in ka badan hal qarni oo ku taala magaalada Syracuse ee gobolka New York ee dalka Mareykanka ayaa loo bedelay masjid muslimiin u badan qaxooti oo ka faa'iideysanaya dastuurka waddankaasi oo ogolaanaya sinaanta xuquuqda goobaha cibaadada ha ahaata kaniisad ama masjid ayaa tallaabadan ku dhiiraday sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Jacfar Kuukay calaamadii isdhaafka ahayd ee Kiristaanka waxaa lagu bedelay bisha astaanta waa muslimiinta haddana waxaa loo bixiyey masjidka Ciise ibnu Maryam 4 sano ka horna waxaa loogu yeeri jiray kaniisadda Holy Trinity gudihiisa waxaa ku xardhan aayado quraanka kariimka mar walba waxaan idhaahdaa darbiyadani waxa ay 100 sano sugayeen inay quraanka dhageystaan dareenkaasina bilowgii horeba waan qabay Yusuf Soil waxa uu qayb ka ahaa dadaalka kaniisaddan masjidka loogu rogay waxa uuna qirayaa inaanay sahal ku iman in jabaqda aadaanka kaniisaddan laga dhex maqlo dadka qaarkood aad ayay uga caroodeen kuwa aanan weligay arag ayaa aniga shakhsiyan ii carooday qaybna waxa ay iga gabanayeen Mareykanimada kaniisadda Holy Trinity waxaa la dhisay horaantii qarnigii 20aad waxaana ku xirnaa qaxootigii Jarmalka iyo Talyaaniga ahaa ee sii kordhayay xilliga in badan ayaa halkan isku guursaday tiro kalena waa la guwaasay laakiin isbeddelka deegaanka ayaa saameeyay in badan oo dadkii ku xirnaa waxay u wareegeen tuulooyinka waxaana bedelay hir cusub oo qaxooti muslimiin u badana waxaanu ceysh ka qaybsanay dad kala duwan ugu dambeyntiina si fudud ayay ku ogolaadeen in kaniisadda masjid loo bedelo sanadkii 2010 ayay Roman Catholic u xiran kaniisaddan ku taala Syracuse inkastoo ay jireen dad doonayay in ay bixiyaan lacag 3 laaba si ay baar amaba kalaab ugu bedelaan haddana waxaa muslimiinta looga iibiyey lacag taas aad uga yar si weli ay u sii ahaato guri lagu cibaadaysto waxaa durbaba bilaabmay dayactirka dhismahan kuraastii ayaa la fujiyey waxaana alwaaxdoodii lagu hagaajiyey saqafka waxaa la fujiyey calaamadihii Kiristaanka ee isdhaafka ahaa qaarkoodna waa la masaxay masjidku ma laha qol gaar ah oo ay dumarku ku tukadaan mana jiro derbi ragga iyo haweenka kala sooca mana laha mu'adin iyo imaam gaar ah maadaama uu muslimiintoo dhan u dhaxeeyana qof kasta wuu addimi karaa salaadana dadka ka bixin karaa
aniga ayaa nafsadeyda tababara, dadkuna way igu dhiirigeliyaan inaan aadaamo. Maalmo ka hor ayaanan bilaabay. qaxooti ka kala yimid dalal dhowr ah ayaa ku nool agagaarka masjidka, laakiin adeega masjidku kuma koobna muslimiinta oo keliya. run ahaantii waxa ay isku arkaan inay xaafadda oo idil u adeegayaan. bakhaarka raashinkooda dadka oo idil ayuu u furan yahay. ma aha xubnaha masjidka iyo muslimiinta oo keliya, ee waxa ay doonayaan inay bulshada oo idil u adeegaan. yuusuf soyl waxa uu leeyahay ha rumaysanin waxa aad ka aragto warbaahinta. si ka duwan sida lagu fakero, Maraykanku si aan la rumaysan karin ayay u soo dhoweeyaan dadka ka duwan, waxaanay qof walba ku jecel yihiin sida uu yahay. toddobaadkanna intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijka qubanaha oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Falastiin Iimaan oo Washington joogta. wixii fakara ama su'aalaha waxaad noogu soo hagaajin kartaan emailkeena qubanaha@voanews.com. tan intaan toddobaadka dambe dib u kulmi doonana sida iyo nabadgelyo.